السلام عليكم. kanaalkan nagala socoto waa Shukristan Shine Linguistic Institute. taariikhdu waa 20 bishii Janaayo 2026. kusoo dhawow casharkeena maanta. Maanta tole waxaan qaadanaynaa syllables. What is a syllable? Syllable maxaa la yiraahdaa? When a consonant and a vowel are combined, they form a syllable. Consonant-ga aan hore u soo qaadan iyo vowel-saga aan hore u soo qaadanay markii la isku dar ayaa waxay form gareynayaan maxay syllable. waxay form gareynayaan wax lagu magacaabo syllable. Tusaale, for example, ba consists of consonant, vowel. Be, consonant, vowel. So, consonant iyo vowel marka la isku daro maxay form gareynayaan syllable. Syllable marka haddaan si kale kugu dhigo waa sida uu dhawaaq ku imaan karo. So, consonant iyo vowel ka marka la isku daro ayaa waxaa ku imanaya maxay syllable. Okay, example aan ku sii marka ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du. Okay, ku badan ayaad ku dari kartaa. haddaad buugga kani aad ka iibsatid numberka shaashada kaaga muuqdo waxaad ogaanaysaa in badan oo kale aad inta ku sii darsanaysaa. Okay, intaan aan wax ku raaciyo syllable-ku marka waxa waaye hingaad ahaan sidii wixii ay u hingaadsami lahaayeen ama ay u kicismi lahaayeen. Okay, intaan ayuu cashirkeen noogu egyahay. caawa la soco cashirkan cashirka kale. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.